magacaygu waa Cabdullaahi Cusmaan Daahiye ku dhashay magaalada caasimadda ee Muqdisho kuna soo barbaaray waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed degree koowaad ee jaamacadana ka qaatay isla gudaha magaalada Muqdisho Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering wax walba ahamidiin sameeyo oo guuleysanaysaan aniga maalintan barnaamijkii ugu horreeyay aan bilaabay dad waxay lahaayeen in waa waalan tahay isoo leeyahay lagu dhahayo qof oo dal matiide hanaga dhumin waqtiga waxa soo Soomaaliya joogta soo dadka waxay aaminsan yihiin qof aan gaal ahayn wax soo saari karin hatta islaamka dunida jooga ma aaminsan wax soo saari karaan gaal ma tii kuleeyeen wax soo saara markay dhacid gaal ma tii kuleeyeen soo markuu way adag tahay dadkii kugu dhow aan ku aaminin iska daa qofka inuu ku dhiiri galo qofka adiga kugu dhow wuxuu ku leeyahay marka qaadnay waxa macquul ma ahan marka alxamdulillah waxaan dhihi kan dijibin wax walba lagu dhaw mar hadii niyadaada go'aansatay inaad sameyn kartid ama ay dhacdo ku dhaqaaq maalinta noqoto maalin waa gaar sidoo waxa waa guul darradu akala ama marka guuleysato dadka dhan way kula farxayaan guushu dad badan tahay marka ka quusanna dhina insha Allah wareen mechanical engineering markii la dhaho waxa sawirnaysaa in oo technical ay tahay sidoo anagu waxa baranayna waa technical waa farsamo gacanta waaye wax lagaga baahay almost waxa loo baranayo in lagu dabaqo marka maadaama anagu mechanical engineering aan nahay oo cilmiga aan baranayno oo wadankeenu waxa dad engineering way buuxeen laakiin uma badnayn xagga jaamacadaha wax ugu soo baxay laakiin waa engineer badan maanta aqoon leh wadanka way joogaan oo way buuxaan marka si anagu maadaama jaamacada magaca wadano oo hadhow leeyahay academical ahaan jaamacad kaga soo baxnay ma ahan in anagiina theory aan wadno ayagiina ay farsamo u wadaan waxyaabaha nagu dhiiray waxay kamid tahay si wax soo saar la wadanka ugu yiraahdo haba yaraatee hal shay oo wax macnaha nooyada wuxuu yahay wax dalka Soomaaliya lagu sameeyo wadanka shaqeynaa wuxuu noqdo barnaamijyadeeni ugu horreeyay markii gaariga soo bandhigayna barnaamij jaamacad wadato jaamacad maalgelin soo ahay oo jaamacad ku ekaay waana qalinjibintii jaamacad meesha ku ekeedo waa xilliga jaamacad ka baxay ahayd kadib ana iskay magaalada u galay oo workshop dalku ku yaalo engineer Janaab Abdulqaadir Umar la dhaho asina kamid engineerada farsamada mechanical-ka ilaa heer jaamacad uu soo baxay ilaa Karaaji oo in badan wadanka asii laftigiisa dhig wax badan u soo qabtay ay ugu soo dhaweey meesha oo ugu wareejiyay in xirfadeeda ku sii hormariyo tan intaan jaamacad ka maqnaa meesha sa joognay kaliya ma ahan doon iyo mootoyinka raaxada soo saarayna barnaamijyo badan ay jiray oo meesha saarnay oo ku soo saarnay ana meesha research ahaan u shaqeysay waa macad research waaye hibra lagu magac daray barnaamijyo badan soo saarnaa jirto wili aan bandhig u sameyn laakiin marka research ka dhameeyna aan rabno wix soo saar iyo bandhig fiican u sameyn insha Allah wallahi taas farxada ay tahay xaqiiqatan wax iga saacideen waxaan dhihi karaa anigu jaamacad kaliya kuma ekeeno jaamacad kaliya wax kama baran xaqiiqatan jaamacad intaan ku biirin ka hor waxaan ka shaqeyn jiray workshop-yada geerishada u badnaada ka shaqeyn jiray oo qof waxa birta ku dhex jiro technical-ka inuu dadka shaqeynayo يعني wax iga saacideen waxay noqon kartaa qof waxa ahay si technical dadka farsamayaqaanada engineeradan kale Allah siiyo rag badan oo saaxiibada iyo macallimiinta farsamada gacanta oo aan dhihi karo in magacii heerkan soo gaaro ayaga sabab waa bacdallah oo iga saacidaan dhihi kara laana wixii marka academically oo aad ku soo barato oo takhasus ahaan u soo barato oo practical joogtana ah hesho macna sameeyay laana anagu dadkeena farsamayaqaanada wadanka joogo qofka asoo xirfad walba laakiin kuma dhiirin karo in wax soo saaro sababtoo looma soo tababarin wax soo saar markii la soo tababaray yani wax cilad bixin la soo tababaray in oo shay meel ka hadlaysan inuu hormariyo ama cilad bixin laakiin inuu new design la imaado looma tababarin oo statistic oo wadankeena u degsan tahay ma ahayn laana arday walba sembri wuxuu maraa macalinkiisa ama engineerkiisa ka hor wadada maro marka maadaama anigu nasiibka u helay in ayageen cilmi ka barto oo xirfadooda ay barto oo jaamacadda markay joogtid inta badan wax laga sheekeynaa hal abuur iyo horumar iyo si wax cusub oo design garaalad ay tahay dadso wax naga saaciday marka aan dhihi karaa in wax soo saaro oo macna ay yeesho wallahi horta wax walba markii la sameeyay xaqiiqatan waxa laga yaabaa dadku markii media meelaha ka arkaan wax yar oo socdo in qofka oo sawirto dasaan sameeyo waa isku keeni kartaa easy horta fududahay wax walba hadda go'aansato waa la sameyn karaa laakiin nijab iyo waxa ka horeeyo iyo rafaad badan ka horeeyo xaqiiqatan format ay u qaadatay in laba barnaamij mid ka horeeya jiray oo laba tamar ku shaqeynayo marna wuxuu ku shaqeynaa tamar energy oo charger oo waxa ugu talagalay diinimo ku shaqeeyaa marna tamartaada ku shaqeynaa adaa sidii baaskiilka camar u isticmaalayo barnaamijkaas markaa sameynay oo aad tijaabinay leelkadiya weynay oo leelkadu ku xirnaa nagu tabar yaraatay leelkooyinkan waaweyn oo doomaha falvayaasha lagu xiranay ma qaadanayo laana
motor xoog leh rabtaa log iyo dynamo ma wareeji karto. That's why midkaan dambe u sameynaa motor weyn u saarnay laana motor weyn hadda kan dambe saaran waa mooto kaligeed waad laana inta u dhaxeeyay waxa waa xaqiiqatan at least 2 months wixii taala jasiir laga soo qaadan oo maalintii barowada aan geynay waxba nagu soo noqday waa imaaneenay workshop-keena xataa xaga inta badan ugu shaqeynayna ururnay oo waa dhibaato fara badan way jirtaa laakiin dhibaato gaarsiisan in anaga qorsheena istaago ma jirto laakiin caqabado oo waajib ah in la maro baa ka horeeyo qarash u baahan tahay xaqiiqatan oo wuxuu la sameeyay igu soo orod ma ahan waa qasaare wixii waxa dan from scratch ka soo bilaabay bilow ka soo bilaabay mid qaan qof ka tixraacid meel lagu sameeyay horma tagin waxa laga yaabaa wax oo niida ka keento design gareysay inay yihiin oo maalin walba marka caqabado wixii asamis qarashka ugu tala gashay 3 jibar qarashka baan ku galay xataa hadda qarashka anaga jeebkeena ka bixinaynay qaarna waxa naga saaciday engineerka inta hadda ku sheegay hibar waa macad weyn waaye engineerka gacanta ku hayo qaarna waalidiinteeda qeer Allah siiyay ku bixiyay oo naga saaciday wallahi waa sameyn karnaa wax ka weyn laakiin anaga hadda muhiimada waxa saareynaa xirfad in hormarino oo anaga asdhisno marka aad isdhisto cilmigaada hormariso baad wax walba ballan qaadi kartaa still anagu basically waxa ka soo bilaabnay oo meel ka soo qaadna ma jirno muhiimadeena hadda sida ku sheegay asrisij waaye waa wadno insha Allah waxaan doonaynaa xirfadeena inaan hormarino wax soo saar sa ku sheegay waxa rabnaa heer aag gaarno wixii wadanka lagu soo saaray ugu yaraan wadamada dariska Afrika in loo dhoofiyo iska daa Soomaaliya laga isticmaalo laana waxa macnaha noo sameeynaa wuxuu yahay haba yaraatay shay yar wadanka lagu sameeyay Soomaaliya sameeyay oo guri kamid laga helo wadamada dariskan laga helo taas macnaha noo sameeynaa wallahi way buuxaan kuwiga aqoon badan joogo laakiin duruufaha dadkii ku saleysan laana way dib badan shaqada hadda anaga ahayn shaqo dawladeed way ma ahan shaqsi wuxuu qaban karo laana mashaariicdu uu siinaysa ma jirto qof kugu maalgelinayo ma jiro markaas soo sameysata ku guuleysato suuq aad ku gadaysid ama qof ka gadanayo faa'iido kugu siinayo ma jiro laakiin waa wax mustaqbal waay oo biri hadartaan alla rafaayis dibkeesna wuxuu yahay dhalinyarteen qofka jaamacad ka soo baxo waa qof saa dareemist waalid baa ku hareersan aslaftirkiis qofka mustaqbal nolol rabaa marka wax ugu horeeyo ku fikiraya soo dhaqaale ku sameyn lahaa waa adoo marka shaqo rabo marka iskaada adiga lacag inaad deen raasato ama waalidkaada lacag aad qaado oo adiga wax ay geliso waqti iyo qarash ay geliso marka way adag tahay wixiina qofkii oo laga yaabo maanta ku guuldareysanay biriya ku guuldareysanay xilliga guuleysanaysa ma uud xaqiiqatan aan dhowr mar ka niyad jabay oo bilaaway istaagtay oo bilawnay way istaagtay waa bilawnay waa niyad kadib ku guuleysanay alxamdulillah laakiin ani hadda waxyaabo isaacidaa waxay kamid tahay alxamdulillah waalidkan uu igrab taageen qar Allah siiyo macadka hibar gudoomiyaheeda engineerka meesha aasaasin jiray Cabdiqaadir Umarna wuxuu diyaar u yahay wax walba qarash ku baxay inuu bixiyo xirfad walba soo saarayo marka waxyaabo aan garab u intaas waxa marka dhihi lahaay ardada ama dadka asaagiga kale iyo dadka iga fiicanba haday helaan dad garab istaago ama qarash ku garab istaagan ama dhiirigelin ku garab istaagan yani waxaan soo saarnay wax ka badan oo ka wanaagsan soo saari karaan wallahi hadda hibar markii la dhaho team hadda saas weyn ama macad weyn oo dhaqaalaha ma ahan laakiin anagu waxa basic asaaroon hadda aniga kamid ah in aad marood suuq ku soo laabto ama wax soo saar ka barnaamijyada soo saarnay kan kalimaan barnaamijyada alaabta beeraha jiro remoolaha jiro barnaamijyo badan oo aan xataa kalluunka ugu talagalnay oo solar system ku shaqeynayo oo asna hadda awdna jiro waxa loo keenay wax u sameeyno anaga waa intii tabarteena waa oo macnaha ugu talagalnay in anaga wixii markaas awoodno sameeyno team kale hadda in anagu nafsadeena wixii shaqeynaa farsamayaqaanada dhiirigelina ma ahane oo hadda aniga kamid ah member kamid aan ahay Jirex markii laga soo tagay anaada meesha gacanta ku hayo joogo wax ku soo saaro arday way jiraan oo inta badan ardayda jaamacadaha kale way noo imaadaan oo tababaraan siinayay way noo imaanayeen rag qaar waxa jiro hawada media inaga arkaan noo imaadaan nala shaqeynayay oo anagu waxba aan ka qaadireenin oo ayaga xirfadooda si u hormariyaan biri hadii xirfadooda hormariyaan anagana way naafacayaan ayaga nafsadooda way anfacayaan dalkana way anfacayaan rajadeen ugu weyn mustaqbalka waa in wadankeena warshado weyn haysto waa ina ka maarnaa sida og tahay wadamadeena waxa laga dhoofiyo aan la soo sameeyo dib lagu soo warshaday waa la keenaa waana easy wax la sameyn karo waa xilliga dawladda hore warshado waaweyn aan lahayn wadankeena ku yeelan ilaa hadda lama dayactirin xataa oo cid isku taxalluqda ma jirto laana hadda waxa aragtaa dhalinyar badan oo wadankeena oo shaqo la'aan ah even haddii warshadahaas warshado kamid ah la hagaajin lahaa meeqa dhalinyar maanta malaayiin dhalinyar
أو شقة تجي لا ها نقدان قالها نقدان كي ما مكبرتي كي برتي جنينك يعني ما أهن هل أنجل كليكم أكو ودن كينا نقالة وسمينا لأنه مركي وحي ودن كذا لقى صوص ودن كذا لوسو علينا أيو مركي بناك رجع كينا ديفرنس أو الحياة marka anaga hamigeen ugu weyn wuxuu yahay wadankeena inuu warshado yeesho wax soo saar yeesho laana maanta wadan walba hormaray wuxuu ku hormaray waa wax soo saar wuxuu ku faanana ma aha wuxuu dibadda ka kaystay wuxuu asiga soo saartay oo ku faanaa marka hamigeen ugu weyn waa inuu wax soo saar yeelana insha Allah hadalkii wuxuu soo gabeynaa fariintii ugu dambeedo oo aan u diraayo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdeena qara la siiyo ugu yaraan in la hormariyo xirfadda wadanka ardada jirta laana dawladii hore waxa jiray xoog la saar jiray xirfada aad si aragto bulutechniko kale xirooyin waaweyn ah jiray oo loogu talagalay dadka farsamayaqaanada in lagu soo saaro laana wadan walba markuu hormarayo wuxuu ka hormaraa xagga wax soo saarka birta ha noqdo wax walba ha noqdo xagga wax soo saarka ka hormaraa marba waxa dhila weeraan inay taxkiliyaan wax soo saarka oo dhalinteena laana shaqada iyadoo shaqo adag ay tahay oo qofkii waxba u soo helaynin waxa laga yaabaa qaarkeen ma awoodaan lacagta ay ku baran lahayn ma wada hata farsamooyinka meelaha farsamooyinka magaalada ka furan qaarkood lacag lagu qaataa qof markii iyadoo shaqo adag ay tahay oo shaqooyinka waxa looga talagalay in lacag lagu bixiyo qofka baranayo in free uu ku helo asiga oo mushaar lagu siisay markuu baranayo laana cid wax u baranayo wax u soo saaray hadhow dalkeedan ugu jirtaa marka definitely waxay daaran tahay in dawladda ugu yaraan macadiyo ama tababar ee qarashna ku bixiyo ardayda aqoonta leh si loo horumarin lahaa oo laana biris ugu dhiirado hantida kaliya ah haysanana waa dhalinyarta waayo oo bari wadanka heer gaarsiin kara